لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كل فيك يا حبيب الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله. munaasabadan oo lagu weyneynayo dhalashada mawlidka nabi maxamed oo ah bishii uu dhashay suubanaheena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa maanta lagu qabtay degmada Burtinle ee gobolka Nugaal iyadoo wali guud ahaan dunida islaamka ay ka socdaan munaasabadaha iyo xafladaha loogu dabaaldegayo xuska bisha mawlid. salli ya rabbi ala mustafa kaman ala ibtadi bismillahi alalim dhil kilan وأوصاني حمد مولاي موعد المملا وأوصالي ثالثا علماء دينka degmada nabadoonada waxgaradka iyo waliba qaybaha kala duwan ee degmada oo ay ka muuqataan maxabada iyo jacaylka ay u qabaan xabiibkeena Muhammad ayaa ka qayb galay xafladda oo si weyn loo soo qaban qaabiyay. ugu horeyntii culamaa'u diinka degmada ayaa bulshada ugu qiseeyay siirada suubanaheena Muhammad يا مهمة إلى ذا إن الحسلبية توقع بشهر ربيع الأول واه بشهر شيء صوبنهن محمد نحريس بتقول يكرك ساعته مركا يقول العلي ويقول العلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أما أنتيسا قف نبي جعل كما درجو أخواني وأحبتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام جعل كيسو وواجب محبته فرض على كل مسلم نبي محمد جعل كيسو قف كستو مسلمة وحي كتهي واجب فرل بي كتهي بهمن إلهي فهي أفضل مهيعي يا ربي يو إلهي يو نقو قال لديسو أيضا وحي تهي ودو يوحلة تمنية وقالسا محبته تعطي المحب مهابة وتوصله أعلى مقام ومرتعي نبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل كيسو تعطي المحب مهابة قفك النبي جعل وحي سيسا هيبت وحي سيسا أنوار وحي سيسا نور بوك باكا موغدا وحنا كوسو استاغي حفلدا وحفلدي أي ديجي جيرين علماء رير بورتينله طريقooyinkoodii mashaayikhdooda ay ku soo dhaweyn jireen nabigooda Muhammad alayhi salaatu wasalaam. xafladaas oo horodhac u ah iyo u diyaar garow banaanbaxa weyn oo berrito aan rajeynayno inuu gilgilo magaalada Burtinle iyo dawaaxideeda oo lagu soo dhaweynayo nabigeennii udgoona alayhi salaatu wasalaam. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli alayhi. wuxuu yiri sheekhani Sheekh Muhammad Saeed al-Busri wa bi hubbi an-nabiy fabghi ridallah fa fi hubbihi ar-ridha wal-hibab. jacaylka nabiga alayhi salaatu wasalaam waxaad ku raadisaa ilaahi raadi ahaanshihiisa iyo wax alla wixii dheef u ahaan aakhiri adduunka taasaa inaad ku anfacaysa. waxaan si mugle ragayga iyo culimada u xilsaareen inaan xafladan abaabulno ugu mahadcelinaynaa mashaayikhdannada macallimiinta nabadoonnada odayaashannada sida sharafta badan u soo ajiibay. وريلا ما يقول داري الصحابة النبي مية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ذكريات كيسة حس كيسة حل كاستسوي ماذا مية سكون فرح صنين مية سوينين ويقول لي النبي الصحابة دي سمدين والحديث كاس مسلم باورينا يو وحنا لفظي لو حا اسكاله نساء با اسكاله حتى طبراني وسو ساريا مركا وحويه نبي محمد عليه الصلاة والسلام سلف الصالح rag badan oo rag waaweynaa taabiciid afarta madhab culimadooda rag badan oo kamid ah waxay cadeeyeen nabiga mawlidkiisa iyo tacdiimintiisa wax weyn inay tahay iska daaye ibn Taymiyyah oo maanta ay ku aftirsanayaan ay leeyihiin sheekhayna Sheikhul Islaam ibn Taymiyyah way kitaabkiisa iqtidaa'u siraat al-mustaqim waxa ku yaalo waxa ay sameynayaan dadka qaarkood oo mawlidka amalkiisa ah oo ilaahi subhanahu wa ta'ala ay ugu dhawaanayaan oo maxabada nabiga ay u dhigayaan waa wax wanaagsan
barkawar ilaah baa idinku dhaariyey haddii ninkii asaga ahaa ibnu taymiya uu sidaa leeyahay oo wixii ka dambeeyana culimmadii oo dhan ay wada qirayaan kuwii ka horeeyana ay qireen nabigana uu tacdiimiyey calayhi salaatu wasalaam maalintiisa oo yoom ku soo dhoweeyey in tacdiim la tacdiimiyo maalmaha iyo mawaasimaadka waaweyn waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa markuu madiina tagay wuxuu arkay yahuud oo sooman wuxuu yidhi maxaa u sooman tihiin waxay dhaheen waa maalintuu nabi muuse ilaahay uu badbaadiyey annagaa idinkaga xaq badanoo yidhi fiiri muxuu u dhihi waayey nabi maxamed yahuud baa tihiine gaala ah iga daayo warkiinna yacni nebi weyn oo ilaahay ambiyadiisa ka mid ah ayuu ilaahay badbaadiyey xamdin ee ilaahay u xamdinayeen u soonaayeen nebiga asagana wuu soomay waana soonnaa annagana fadaaisha nebigu waa dhirtoo kale waa badda hindioo kale waa xidkaasoo kale haddii la wado dhammaan maayo in salsal gaari maayo yeelkadeeda marka waxa weeye hadda ka soo qaad abujahal meeshuu dhalashada nebiga ku farxay nebinimo uguma farxin nebinimo iyo diin ilaahay xaggii uguma farxin qabyaalad buu ugu farxay wiil baa noo dhashay buu ugu farxay habeen kastana oo asniina iyo maalintiisana naarta laga khafiifiyaa maxaa laga farxiyaa dhalashadii nebiga farxidii uu ku farxay markii thuwaybatul aslamiya ay ugu bishaaraysay gabadhiina uu ku xoreeyey intaasaa baa loogu deeqay isagoo nebiga dhib fara badan u geystay magaratay waatuu sheekhi ahaadoo فما ذان بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومتى واحدا نصف فيها أنه حاج كان حديث مرينا النبي قبري سنة مرينا وغيره خلفته نبي محمد نبي محمد نبي محمد وبيان مغلي صار وهم مغلي يا نبي كده غيره كده waxaan ka baqayaa askartaan inay tuulo jeegada qabato lama ogolo qayrada markaas war waa runtiis oo aamusay bismillaahir rahmaanir rahiim rasuulka amaan iyo mudna baraka iimaane rasuulka amaan iyo mudna baraka iimaane ifka wuxuu soo baxay isliin subax aroortiye adimada gacmaha buu dhigtuu eegay samadiye aqalladii kisraa wada burburayda milaahaye dabkii baa ilayskii ka tegey faris uu shidaye xidigaa ibliis lagu ganiyo aarmisamadaahe xaq waxaan ahayn oo dhan baa dumay ayaantaase udgoonow rasuulka lahaa kumanan waaro rasuulka amaan iyo mudna baraka iimaane rasuulka amaan iyo mudna baraka iimaane ifka wuxuu u soo baxay isliin subax aroortiye adimada gacmaha buu dhigtuu eegay samadiye aqalladii kisraa wada burburayda milaahaye dabkii baa ilayskii ka tegey faris uu shidaye xidigaa ibliis lagu ganiyo aarmisamadaahe xaq waxaan ahayn oo dhan baa dumay ayaantaase udgoonow rasuulka lahaa kumanan waaro argagax baa munaafaqa ku dhacay aragtidiisii aroortuu dhashaa gaaladii ooda loo rogay ummaddiisi baa raacday iyo ehelu iimaane abshir buu inoo keenay iyo aayad iyo nuure akhrudahaya ruuxii inkira nebi ammaankiisa abtirsiiyihii nebiga iyo siirada ammaanta aqoonsiga la weynaynayaa waa ayaan mudane wuxuu naga istaahilay inaan kor u ammaanaaye nin akhriyey asmaadiisa amase mawliidka iyo kii anfacadii baxsho aan xuska ilaawin ilaahii isaga doortay baa kaa abaalmarine allaan qiray rasuulkaan inkiray waa afkirishtaane madarreena allah ina siiyo kulankeenna kula abshiraad allah ka dhigo meel walba allah ina ka liibaano cidda xafladdaas soo qabanqaabisa ilaahay waxaan ka baryaynaa darajadooda dhashooda iyo iyaga iyo waaridkoodna allah u naxariisto runtii waa munaasabo qaali ah oo u baahan in la dhiirigeliyo
oo meel walba oo caalamka islaam ka mid ah la isugu tahniyadeynayo oo la xusayo oo la weyneynayo innagana buurti lahaan culimmada khayrka qabtay hawshaan u qumtay oo madaarista iyo masaajidda iyo mawlacyada iyo macahadyada intaba ka wada waxaan leenahay Allah barakeeyo cimrigoodana Allah raajiyo annaga odayaal ahaan runtii aad bay noo farax gelinaysaa mar walba in culimmadu ay ka shaqaynayso shacaarul islaamka inay dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maalin wanaagsan oo qiimo badan oo muslimka qiimo weyn kule ay mar walba noo soo diyaariyaan oo nagu casumaan oo aanu ka soo qayb galno aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan leenahay Allah barakeeyo culimmada waa intaas oo ugala sii dhawaataan nabigeena sallallahu alayhi wasallam maxabadiisa ilaahay oo noogu dambi dhaaf dunuubteena ilaahu dhaaf dacwaadkeena ilaahu aqbal ilaahay oo gacantan ku horsanina ilaahuna aqbal rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ilaahu magaaladeena iyo magaalooyinka kale oo Soomaaliya muslimiintaba ilaahay amni ilaahu ka dhig amni iyo barwaaqo ilaahu ka dhig ilaahay kuwa nabiga jecel ilaahu ka dhig rijaalan iyo nisaa'an iyo shababan iyo shuyuukhan ba ilaahay oo nabiga ilaahu jeclaysi kuwa mawlidka wada dhigta oo ku wada farxa oo deewad aragteen caalamka sida looga dhigayo nabigu inama baahna inaga u baahan isagu inama baahno sallallahu alayhi wasallam inaynu waxaan rajaynaynaa inaynu u soo wada bixi doono maalinta bariyaha daafaha caalamka sidii mashaariq al-ardh iyo maqaaribaha inagoo ku dayanayna dadka muslimiinta ah ilaahu kuwaas oo kale naga dhig waxaynu isku nimi waynu wada ognahay waa weynaynta dhalashada xabiibkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi dhalashada iyo nicmaynta ilaahay noo nicmeeyey oo nagu nicmeeyey nagu galadeeyey dhalashada xabiibkeena waa nicmad ay waajib tahay inaan ka mahadnaqno halkan waxaan isugu soo baxnayna waa mahadnaqa ilaahay uu nagu galadaystay rasuulkaas oo ka bilaabmaysa rasuulka dhalashadiisa salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo ku beegan maanta aan isugu nimid dhalashada rasuulka